qaybtii koowaad waxa ay noo mareysay baalkii ay sameeyeen oo ay dhigeen dhabbada dhexdooda ayagana guriyaasha ay ka fiirinayaan. wax yar kadib waxaa soo yeertay shanqartii naagtii dad qalashada ahayd waxa ayna soo aaday guryaha dhinacooda. labadii nin midkii koreeyay ayaa yiri ma maqashaa cod waxaa la gaaray xilligii ay imaan jirtay dad qalashada waa inaan isdiyaarinaa. isla markiiba naagtii dad qalashadaheed ayaa tiri maxaad rabtaa maxaa meeshan ku keenay aniga ayaa xaafadan ka taliya ee waa inaad iskaga tagtaa. xaafadan waa xaafadeeda umana ogolaanayo qof kale inuu imaado kana taliyo. kii hoos oo codka iska bedelaya ayaa yiri tuuladan hadda kadib anaga ka talinayno annagaana xukunkeeda la wareegayno kamana talin doontid maanta maalin ka dambayso. naagtii dad qalashadaheed ayaa tiri maya ma suurtagelayso tuuladan aniga keligay ayaa leh. ninkii hoos jira ayaa hadlay waxa uu yiri naagtii dad qalashadaheeday ninkan qofka uu qabto calooshiisa ayuu kushanayaa anigana hadda waxaan ku jiraa calooshiisa naagta sixrooladaheeday ibadbaadi. naagtii dan qalashadaheed waxa ay bilowday in ay qoorta soo jiido waxa ayna la baxday ninkii hore waxa ayna la aaday gurigeeda. ninkiina sidii ayay ku qaadatay kuna xabaarantay waxa ayna geysay xaafadeeda. asagana aad ayuu u qeylinayay waxa uuna dhahayay ibadbaadiya. waxa ay geysatay meesha ay dadka kala geysanaysay dadkii tuulada ayaa isku imaaday. naagtii ninkii uu qabay ayaa waxa ay tiri ninkeyga waxaan ka baqayaa in ay dad qalashada igu cunto waana ognahay dan qalashadaas qofkay qabato in ay dilayso waxaan rabaa in liisoo badbaadiyo ninkeyga. meesha taagna ayaa yiri ha ka baqin walaashayay ninkaada waa lagu soo badbaadinayaa. naagtii ayaa tiri naagta dan qalashada waan garanaynaa qofka ay qabatana dib dambe uma soo laabto ninkeyga iisoo badbaadiya. fadlan si aad ula socoto qeybaha dambe channelka subscribe saar like-na taabo fadlan share dhaha commentigana waa inoo muhiim waxa uu noo yahay dhiirigelin waxaan doonayaa dhiirigelintiina fadlan commentiga ha iloobina.